haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baadhista waxaa inoo hayaa Haaruun Macruuf. kadib weerarkii 3 bishan ay al-shabaab ku qaadeen saldhigyada militariga ee Awdheegle iyo Bariire waxaa xubno ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradku ay mar kale ku celiyeen eedda ay u jeedinayaan dawladda Soomaaliya ee ah in ciidanku ay ka jeesteen la dagaalanka ururka al-shabaab ayna ku mashquuleen siyaasadda. weerarka Shabeellada Hoose waxaa ka dhashay khasaare badan oo ciidanku gaarsiiyeen al-shabaab iyo mid iyaga la gaarsiiyeyba. saraakiisha ciidamadu waxay qirteen 14 askari inay ka dhinteen, hase yeeshee warar dhinaca amniga ah oo galka baarista uu helay waxay muujinayaan in tirada dhimashada ciidanku ay intaas ka badan tahay. haddaba siyaasiyiinta mucaaradka ayaa soo jeedinaya eedda ah in ciidamo badan oo ay ahayd inay furimaha dagaalka joogaan ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho iyo gobolka Gedo ayna ku mashquulsan yihiin muranno ka dhashay siyaasadda u dhaxaysa dawladda federaalka, maamulada iyo mucaaradka. siyaasiyiinta fikirkaasi qaba waxaa ka mid ah Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, horena u soo noqday wasiirka amniga. mar walba uu jiray isqabqabsi siyaasadeed waxaa dhacday in ciidamada meelaha ay joogeen laga soo saaro. waa la socotaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray in ciidamo badan magaalada la keenay, khaasatan markii ay xildhibaano fara badan oo aan aniguba ka mid ahaa ay baarlamaanka ay ka sheegeen inaysan yani ajandaha inay wax badan ka qaldan yihiin guddoomiyaha in loo sheegay. marka waxaa dhacday in ciidamo fara badan oo weliba gawaarida qafulan ay ku jiraan in magaalada lagu soo daadayo si maalinkaas loo xiray magaalada si aysan xildhibaanadaasi aysan u gelin baarlamaanka. marka waxaan isleeyahay waxyaabaha fududeeya waxyaabahaas waxaa ka mid ah in ciidamadii la rabay inay difaaca ku jiraan oo ay joogaan meeshaas meelo goobaha ay soo weerareen al-shabaab Awdheegle iyo Bariire in ciidamo badan laga soo qaaday ayaan aniga aan aaminsanahay. ciidamadaasna ay ahaayeen ciidamadii magaalada Muqdisho la keenay. sidaad la socoto ciidamada iyo laamaha amniga dabcan siyaasad baa hagta, siyaasadda haddana dawlad baa jirta. marka maxaa ku jaban dawladda hadda jirta si siyaasadeedu u hirgasho hadday ciidanka u adeegsato? waa su'aal fiican waaye. ciidamada horta dabcan waxaa loo adeegsadaa difaaca waddanka iyo wixii amni darraa ama rule of law in lagu ilaaliyo. oo mar walba dawladdu waa inay ayada tahay cidda haysata waxa la yiraahdo loo yaqaan monopoly of violence, cidda kaliya oo samayn karta inay ayada tahay oo ciidan leh. ciidankaasna waxaa loogu talagalay inay sharciga markii yani lagu dhaqan geliyo lagu ilaaliyo rule of law, difaaca lagu difaaca shabaab, xuduudaha lagu difaaca loogu talagalay. ciidamada marnaba looguma talagelin inay siyaasadda ku milmaan. qodobka 127 ee dastuurka wuxuu leeyahay ciidamadu waa inay siyaasadda ay ka madax banaanaadaan oo aysan ku milmin. neutrality waa inay jirtaa. marka ciidamada looma isticmaali karo siyaasad, yani amni sugid waa loo isticmaali karaa. waa loo isticmaali karaa in yani difaaca inay difaacaan xuduudaha, laakiin ciidanka looma isticmaali karo in dad lagu caburiyo, in shacabkii Soomaaliyeed loo isticmaalo, in siyaasad loo isticmaalo ama objective siyaasadeed oo leeyahay dartood
yani intimidation dadka loogu sameeyo waxyaabahaas oo dhan looma isticmaali karo. mid ka mid a saraakiisha ciidamada Soomaaliya ayaa isaguna qaba in la kala ilaaliyo ciidanka iyo siyaasadda. gaashaanle sare Axmed Sheekh Cabdullaahi waxa uu hore u soo noqday taliyaha ciidamada danab. ciidanka iyo siyaasadda waa la kala ilaalin karaa sababta ciidanka siyaasadda waxay shaqo ku leeyihiin ma jirto. waxa qaybta dhanka fulinta siyaasadda qayb baa haga ciidanka dhanka diyaarintooda ka warqabkooda iyo daryeelkooda laakiin waa siyaasad oo ku saleysan sharci iyo nidaam. masalan sarkaalku amar khaldan uu ogsoon yahay baalmarsan sharciga ma qaadan karo mana fulin karo sidoo kale ma sii bixin karo wixii isaga ka hooseeyo. eedaha ku saabsan doorka laamaha amniga iyo muranada siyaasadda waxay aad u soo shaacbaxeen 19 bishii Febraayo ee sanadkan markaas oo ciidamada dawladdu ay dagaal la galeen ilaalada qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynenimada oo ay ku jiraan madaxweynayaal hore isla markaana ay rasaasayeen siyaasiyiin iyo dad shacab ah oo doonaya inay banaan baxaan. dawladda Soomaaliya waxay markii dambe sheegtay inay ka xun tahay dhacdadaasi. gaashaanle sare Axmed Sheekh Cabdullaahi waxa uu leeyahay dhacdadii 19 Febraayo waxay iska hor keentay xubno ka wada tirsan ciidanka waxaana uu ku tilmaamay wixii dhacay ayaan daro. 19 Febraayo waxa horto isdagaalayay oo xabad isweerdeysanaayay waxay ahaayeen ciidan ka xoog dalka Soomaaliyeed tubiyo ka wada tirsan isla ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed. waa runtii wana ayaan daro wixii dhacay dhanka dawladana waxaa lagu marwarsiinayay sarkaal oo generaal ah oo mas'uul hore ah inuu warbaahinta hadal la wadaagay hadalkaasna waqtigeeda ku habooneed iyo in maaragtay waqti la siiyo kala sareynta sharciga haddii uu khalad uu sameeyna cadaaladda la hor keeno laakiin isla habeenkaasi weerar lagu qaado goob oo murashaxiin ay ku sugan yihiin oo mas'uuliyiin hore ah oo runtii dastuurku u ogolaanayo inay haystaan ilaalo u gaar ah oo ka badqabo nabadgelyadooda. marka waa runtii waa ayandaro waxay dhacay waxay ahaydna waddo kale in loo maro. eedaha mucaaradka waxaa ka jawaabay kuna gacan sayray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Sareeye Guuto Odawaay Yuusuf Raage oo aan dhawaan waraystay. qaybo ka mid ah bulshada oo siyaasiyiin u badan waxay ku doodayaan ciidanku inay meeshii ay isha ku hayeen diiradda ku hayeen oo dagaalka shabaab ahayd inay ishii ka qaadeen oo hadda ay ku mashquuleen siyaasad Muqdisho ay joogaan. marka arintaas carqalad ma ku noqotay ama maxaa ku idhaahdaa fursad ma u noqotay shabaab baa la dhihi karaa? aad iyo aad u mahadsantahay. horta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. arrimaha siyaasaduna arrimo quseeya ma aha. siyaasaduna waa siyaasad. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. xaqiiqatanka dadka fikirka noocaas doonaya mar walba inay bulshada Soomaaliyeed ay ka gadaan ama ay fikirka noocaas u heesta inay mansabka iyo ayagu ay doonayaan inay ku gaarayaan inay dacaayadeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama guud ahaanba ciidamada qaranka ayagoo bixinaya dhididkooda iyo dhiigooda inay ku tilmaamaan inay cid gaar u adeegayaan. taas horta waa iska nasiib darro. waxay qayb ka tahay runtii dadka fikirada guracan ay ku jiraan bulshada Soomaaliyeed kamid ah. dhihi ma karna hadda siyaasi ma dhihi karna xaqiiqatanka dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidan qaran. waxay u diyaarsan yihiin badbaadinta qaranka Soomaaliyeed. waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta sharafka iyo karaamada muwaadin kasta ee Soomaaliyeed. waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta muxuu ahaa ay xuduudaha dalkan uu leeyahay. taas ayay waxay ugu jiraan diyaar garow gacanna waxay ugu diyaar garoobayaan taas oo howlahooda ku wataan. gacanta kalena bulshada Soomaaliyeed ayay ugu adeegayaan oo cadowga dhibaatada ku hay ay uga dulqaadayaan. marka fikirka noocaas dadka aaminsan xaqiiqatanka waa fikir aan ka